dhame gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani oo muddo 2 bilood ee bar ku xidhnaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ayaa maanta dib u helay xorriyadiisa kadib markii ay sheegeen xisbiga mucaaradka wadani in ay u iibiyeen xadhiga muddadii lagu xukumay mid dhame oo lagu xidhay magaalada Hargeysa kadib markuu ka hadlay bandoogii lagu soo rogay gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo ee Ceelafweyn xukuumadda Soomaaliland si aad uga dhidhiday hadalka ka soo yeeray Maxamed Saciid Dhame gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee wadani kadibna ay xabsiga u taxawday ayaa muddo 2 bilood iyo bar kadib maanta xorriyadiisa dib u helay saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay xariga Maxamed Saciid Dhame iyo waliba soo doontiisa waxayna yiraahdeen markii hore iska hay dacwad siyaasi ah oo aanu sifo sharciye marka horeba ku xidhnayn oo intii uu xariga uu xidhnaana ay ahayd wax sharciga baalmarsan oo dulmiya waxaan iminka u mahad celinaa Ilaahay marka labaadna waxaan u mahad celinaa garsoorkii sida fiican dacwadiisa ka yeelay walaalkeen Maxamed Saciid Dhame oo maanta xorriyadiisa dib u helay arintaasi farxad weyn bay run ahaantii xisbi ahaan iyo shacabka reer Soomaaliland baa tahay waxaan u mahadnaqaynaa garsoorkii waxaan u mahadnaqaynaa taageerayaashii xisbiga maxaan ku dhahdaa arintaasi inta badan garab taagnaa walaalkood waxaan u mahadnaqaynaa looyaradii ayaan u mahadnaqaynaa Maxamed Saciid Dhame uu soo baxay waxaan rajaynaynaa dadka kale sida Saciid uu dulmiga ugu xidhnaa iyaguna dulmiga ugu xidhan in iyaguna xornimadooda helaan gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbiga ballaaran wadani ayaa maanta xorriyadiisa dib u helay Soomaaliland oo dhan bay guul u tahay ilaahna waa kala furtay qoladan kulmiyo waxaanu maaganay ilaahun baa ogaa 17 cisho kadib waxaan maanta helay xorriyadeedii asaasiga ahayd markii horena xaqdarrada la iga qaaday iyo xadhigayga qabashada ah oo runtii aan waafaqsanayn sharciga markii la xidhayna aan loo maray sifo sharciya oo waaran la igu xidhin oo aan la ilaalin xurmadii guriga hoyga oo ay ciidanka bileysku sameeyeen wax aan u wanaagsanayn sumcadda iyo sharafta Soomaaliland waxaan marka koowaad u mahad celinayaa Ilaahay marka labaadna waxaan u mahad celinayaa xisbiga wadani gudiyo dibadba waxaan ku soo baxay dadaalkii xisbiga iyo dadaalkii ay muujiyeen hoggaanka iyo madaxda xisbigu waxaan runtii mahad weyn u dirayaa iyagana dhammaan ummadda Soomaaliland ee xaq baal taagneed ee xaq darradana ka dhiididay xadhug markuu xaq darro yahay ma aha wax dhiba qofka mana aha wax kugu sameynaya adiga niyad jab waxa dareemaysaa kalsooni iyo karti kale dheeraad xukuumadda kulmiyana mid uu baan aanu fariin u dirayaa waxaan leeyahay xadhigiina waa adkaysanaynaa idinkuna xorriyad hadalka iyaga iyo inaanu soo bandhigno dhaliilihiina daldaloolooyinkiina xamil iyo adaygu yeesha waxaan iyagana u mahad celinayaa hay'adaha caalamiga ah ee insaanka ee Amnesty International iyo hay'adaha maxalliga ah ee Soomaaliland ee insaankooda waxaan kalaan iyagana u mahad celinayaa markii koowaad guddiga xuquuqul insaanka qaranka oo door shariif qaatay warbixin shilis oo aan Soomaaliland hore u soo saaray kaalinta aynu doonaynaa waa taa Soomaaliland waa dal dimuqraadi xeerka la igu xukumay ee leedaba wadayna wuxuu ahaa xeerka ciqaabta guud oo 62kii soo baxay nolosha casriga lama jaan qaadayo nolosha casriga ee dimuqraadiga ee codka ay doorashada ay Soomaaliland maanta ku joogto ma ku taabaqaadayo waxaan idinka warrami doonaa xog badan oo xabsiga iyo wixii aan maaragtay hadda Soomaaliland cadaalad sinaan midnimo iyo nabadgelyo ku socoto waynu iska waraysan doonaa waxaan iyagana u mahadnaqayaa oo aanan ilaawi karin ciidanka asluubta oo ciidan ah magacooga iyo shaqadooda Ilaahay is waafajiyay oo 17 cishaan xidhnaana si sharaf leh raganimo leh dhexdhexaadnimo leh ila macaamilay maxaabiista kale ee xabsiga ku jirta oo la macaamila waxay noo ogolaadeen ehelkayaga looyaradayada asxaabtayada iyo xisbigayga inay soo booqdaan Faisal Yuusuf Kacaan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.